shirkan waa shir beeleed kuma saabsana siyaasad kale iyo cid kale midna kaliya wuxuu ku saabsan yahay fariin aanu gaarsiinayna ama masjid aan gaarsiinayna dawladda dhexe ee Muqdisho iyo dhammaan beesha caalamka African Union Arab League IGAD taasoo aan kaga cabanayno cadaalad darrada tobankii sano laga soo bilaabo Carta ilaa hadda beeshan lagu sameeyay la leeyahayna kooxyo oo maarta hogaamiye kooxeedii ay la imaadeen lagu saleynayo Soomaaliya inay maarta baarlamaan u yihiin waxaan ku sheegaynaa caalamka ama dhammaan dawladaha maarta ay arrinta Soomaaliya qusaysa waxaan leenahay ma ahan waxa meesha lagu hayo wax cadaalad ah beeshan waa beel balaaran deegaankeedu wuxuu ka soo bilowdaa laga soo bilaabo Bay gaar ahaan Diinsoor degmada Raaxoole ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo maarta Raaskaymoni inta ayay degtaa sidaas darteed beel aan 10 qofood ka soo ciidminaynin oo lagu keenay shakhsiyaadkeeda maarta xabad afkeed ayaa la leeyahay waa baarlamaan taas waxaan leenahay ma ahan cadaalad madaxweynaha ra'iisul baarlamaanka ra'iisul wasaaraha dhammaan fariinteena waxaan leenahay hal la sameeyo cadaalad Soomaalinimo ah cadaaladiisu keeni karta dadka annagu ma leheenin beeshan waxay ahayd beel nabadeed hogaamiye kooxeedna ma leheenin kuwa maarta qabqabla la yiraahdana ma leheenin kuwii lisugu geeyay maarta imbagaati kuma aanu jirin sidaas darteed waxaan leenahay maalin maalmaha kamid ah ayaa la gaari doonaa cadaaladaasi aan ka dhursugaynina waxay noqotay 4.5 wax la yiraahdo oo xaraan ah oo maarta motion gaad ah waxaan leenahay taayada ma ahan Soomaalinimo waxaan leenahay ka laga daaya shirka lagu qabanaya Jubbada Hoose gaar ahaan magaalada madaxda ku meel gaarta ay Kismaayo lana filayo inay ka soo baxaan wax miro dhal ah oo Soomaaliyeed waxaan leenahay shirka lagu saleeyo cadaaladda hal loo dhawaado hal deegaameeyo sababtoo ah deegaanka wuxuu keenayaa nin meel uusan laheenin inuusan sheeganin ayuu keenayaa deegaanka naftiisa ayaa waxaan dhici karta in la xusul riixa sidaas darteed waxaan leenahay beeshan afkeeda hadeer aan ku hadlaaya meeshana fadhida baahiyo boqor ugaas ama suldaan ama cid kasta waxaad u jeedin indhihiina waxa ayaga ay ka dhiidiyeen waxaan fariin kale u diraynaa Shariif Xasan waxa sameeyay ma ahayn cadaalad sameey ma jiraysid cid kasto isku dayda inay cadaalad darro sameeysa ogaada ilaahayna uu la xisaabtamaya maanta adduunyada waa xisaab haysata ma ahayn waxa sameeyay cadaalad waxaanu leenahay laga bilaabo saacadaas Raaxoole ilaa iyo maarta inay ka soo go'do oo ay soo raacda Jubbaland baanu soo raacinayna sababtoo ah ummad jirta oo maanta jiritaankeeda xaqiiqo u yahay deegaankeeda cad yahay in la xaqiiro liiraahda meesh wax kuma lihid bay u dhigantaa waxa uu ka sameeyay maarta Baydhabo waxaan leenahay dhammaan caalamka beesha caalamka ku soo dhawaada cadaalad inaad Soomaaliya u horseedaan wixii cadaalad darro sameynayana aad ka hor imaataan dhammaan waxaan maarta si gaar ah u gaarsiinaynaa masjidkan madaxweyne goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Madoobe waxaanu leenahay meesha aad joogta meel wanaagsan ugu sii gudub idaacadaha caalamka meel kasto la tagana ninka ugu hadal wanaagsan ee ugu hadal Soomaaliyeedsan ayaa tahay taas oo aad ficil ku darta ayaan annaanu raali ka noqonaynaa waxaan leenahay soo dhawow cadaaladda ku wad cadaaladda u dhawow ilaahayna wuu ka ajarsiinayaa inagu islaamkana way kaaga marqaati noqonayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh